waxaan magaadanayaa guddiga doorashada oo runtii shaqeeyey muddo yaroo kooban maantana noo soo bandhigay geedi socodkii iyo roadmapkii barnaamijka dimuqraasiyadda puntland february ay ahayd waqtigii aanu ku dhawaaqnay guddiga haddana waa october waa waqti dheer runtii waxaan moodaa markaa jadwalka sida hadda aanu u soconno waa dhib badanaysa in la dhammaystiro barnaamijkan ku talagalnay marka waxaan u baahanaa runtii in aanu waqti badan iyo juhdi badan gelino timelineka hadda iyo benchmarkiska ay hadda ay waqtiga iyo timeka ay noo soo bandhigeen guddiguna siduu yahay aanu ku dadaalno in wax uga hirgalaan dabcan waan rajaynaynaa waqtiga la haysto oo yar waa 2 sano hadda oo wax iyo wax yar laba bilood in aanu ku talagalno hawlaha yaallo tirada badan sida ay sheegeen iyo waqti oo kooban in aanu dhammaanteen waxaan shaqa dowladda u taalla maahay in aanu dhammaanteen ku talagalno haddii systemka iyo waxaan rabnaa runtii daacadii ku laga yihiin aanu ku talagalno inay say tahay u hirgalaan waqtigaasna aan ku qabanno waan rajaynayaa guddiguna runtii arrintaas diyaar bay u yihiin dabcan wixii dhanka iyaga soo jiro oo imkaaniyaadka dowliga ahna aan laftageedu ku talagalno kana subxaana wa tacaala haddii marka waataanu nidhi 2019 January haddii aanu dowlad ahaan samayn weyno nidaamkaasi wax badan baa dowladnimadii gaaray runtii marka haddii ay suurtagal tahay xataa inay hirgeli weyno dabcan waxaan u baahannahay meel wanaagsan oo kuwa dambe successoriska iyagu ay ka ambaqaadi karaan in aanu gaarsiino laakiin aan ku talagalno waqtigaas yar oo kooban wixii runtii aan noqon karno inaanu qabanno aan ku dadaalno saa sheegay marka waa wadajir lagu sameeyo miidiyu ka qayb qaato dhaqanku ka qayb qaato culummadu ka qayb qaadato dumarku ka qayb qaataan dhalinyaradu ka qayb qaadato inuu barnaamij kulligan aan focus ku nahay ku wajahannahay ku talagalno inaanu hirgelin haddii